إلهي سبحانه وتعالى دعوينك ووين مأثور كأه الله تبارك وتعالى كتاب كيس القرآن كأوكتل ما وحى كمد قصة النبي يونس ابن متى عليه السلام. نبي يونس وعوها كان نبيا من الأنبياء. نبي كمد نبي يدي الله تبارك وتعالى ودورتي أيو كمد يهي وكان مبعوثا إلى أهل النينوى من أرض موصل بالعراق. النبي يونس وحى الله دري مقالة موصل ليرادو العراق قتالا دادك رير أهل النينوى الله دري. كل كاسو الله تبارك وتعالى غيري نبي يونس فأبوا عليه ويديدين إني دعودي يا رسالة النبي يونس أي قاتان أو تمادوا في كفرهم قال لماذا دي بيكون مرح عليهم أو يكهري ما النبي يونس عليه السلام. نبي يونس waxa uu ka dhex baxay qoomkii loo diray isagoo u caraysan diididda ay diideen ilaahay risaaladiisii ay diideen ayuu kharaja min bayna adhurihim muqaadiban lahum isagoo u caraysan buu ka dhex baxay marka goormuu ka dhex baxay qabla an ya'murahu allahu bidalik intaan allah farin tabaaraka wa tacaala inuu ka dhex baxo ayuu isagoo u caraysan ka dhex baxay. نبي يونس وحو كوريدون أي جماعة الله صعوته آدي آدنا أررنبو دحقلي عردي وقوم كيسا كعروضين الدون تاسو أيو قلي كل كي دون تي أي دقاقضي أو بدوين تي أي تكتي أي دون تعليس بدن أو حمل بدن باصارنا يدد بدن وي صارناين أي دون تي وحي خطر وقشا إني قدونتو oo ay qaraqanto kolkaasaa waxay isku tanbiihiyeen dadkii saarnaa in doonta tan ay u baahan tahay in culayska laga khafiifiyo si aan loo wada baabi'inoo badda loogu wada rogman. waxaa la go-aansaday in la qori tuuro oo qofkii qorigiisu soo baxo in badda lagu tuuro isaga. qori tuur baa loo sameeyey dadkii badda doonta saarnaa. waxaa qorigiisa soo baxay nebi yuunus ibnu mata ayaa u soo baxay in uu ka mid noqdo kuwa badda lagu tuurayo. kolkii qorigiisa soo baxay ayuu nebi yuunus baddii isku tuuray ilaa qorigiisii baa soo baxay iyo qurcadiisii. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu u waxyooday xuut iyo mallay in uu laqo yuunus oo calooshiisa ku xabiso hilibkiisa iyo jirkiisana uusan taaban lafihiisana inuusan jabin ba allah tabaaraka wa tacaala xuudka u waxyooday. halkaasaa lagu xabisay fii badni lxuut baa nebi yuunus lagu xabisay. allah tabaaraka wa tacaala baan ibtilaagaa geliyey. ilaahay wuxuu yihi waina yuunusa fii suurati saafaat waina yuunusa لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إلهي وحده تبارك وتعالى intii hadda aan soo tilmaanay ayuu rabbi aayaadka ku tilmaamaya. nebi yuunus wuxuu ahaa mursaliintii la diray buu ka mid ahaa. wuxuu u galay oo u dhuuntay oo dhex galay oo raacay doon buuxda oo dad iyo xamlima ama yacnaa culays badan iyo alaab badan rar badan ay ka buuxdo. kolkaas ayaa waxaa loo sameeyey qurcadii iyo sahmigiisii marka soo baxay. kolkaa ayuu badda isku tuureen. kolkaas ayaa xuudkaas ayaa laqay
xuudka inuu laqana alla tabaaraka wa tacaala baa amray inuu nabadgeliyo keliya uu ku xabiso calooshiisaana la faray alla tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay hadduusan yuunus ka mid ahaan lahayn kuwa alla u tasbiixsada oo ilaahay hufo oo ammaana oo ilaahay weyneeya wuxuu ku nagaan lahaa xuudka calooshiisa ilaa yowm maalinta laga gaaro dadka la soo saaray ilaa yowmi yubcathuun maalinta dadka la soo saaray yowma alqiyaama halkaasi ku jiri lahaa hadduusan falowlaa anahu kana min almusabixiin buu rabbi leeyahay haddaba nebi yuunus calayhi assalaam isagoo halkaa ku jira oo caloosha xuudkaa ku jira iyo mugdiyada ayuu naadaa rabbahu mustakiithan muniiban bikhaطئihim ilaahay subxaana